Soomaalidu sideedu waxay u aragtaa siyaasaddu in ay tahay meel dakhli laga helo. Sida aad arki doontid waxaa arkaysaa bulsho badan oo dakhli ka abuurtay. Lacagta uu madaxweyne Maxamed Cabdullaahi Farmaajo haysto waa malaayiin, hanti nooc walba leh. Lacagta uu Khayr haysto waa malaayiin, lagu qiyaasay inuu haysto 1 milyan ilaa 5 milyan oo dollar. Lacagta uu Muuse Biixi haysto inkastaba ha iska qarsoonaato, hase ahaatee waxaan ognahay inuu guryo iyo hanti nooc kasta ahba uu leeyahay. Lacagta ku baxda Al-Shabaab sanadkii waxaa lagu qiyaasaa inay tahay 12 milyan ilaa 15 milyan oo dollar oo ay ummadda Soomaaliyeed ka qaataan. Lacagta ay haystaan maamul goboleedyada madaxdooda waa aad iyo aad ay u badan tahay. waxaan ognahay in ay dhaceen hantidii ummadda Soomaaliyeed. laakiinse qofka dhibaataysan oo waxba haysan waa adiga. quraacdii way ku goysay, qada warkeeda daa. sida lacagtaadii loo dhacay beentana lagu sheegay. ku soo dhawow Galool. waxaa laga yaabaa ilaa yaraantaadii lagugu shubayay waxba hagaagaya. iskuulka aad, waxbaro, reerkaaga u hiili. laakiin weli waxba ma haysatid, naftaaduna ma sugna, qoyskaaga warkiisa daa. intaas waxaa kuu sii dheer, waddankaagu waa hodan, wuu hagaagayaa, waana qani. erayada ugu muhiimsan ee dhagaha ku soo laalaabta waxaa ka mid ah mustaqbalkii dhulkan waa adiga, ubixii berito ayaa tahay. tilmaamahan wuxuu kuu tilmaamayaa sidii aad uga bixi lahayd qolada xayraanka ah oo aad ugu biiri lahayd qolada qoyan. sida lacagtaadii loo dhacay adna aad ugu biiri karto qolada dhanka qoyan jooga. qodobka koowaad, ku shaqaysiga iyo fahamka qabiilka. qabiilku adiga waxaad u haysataa inaad mudan tahay oo aad nasiib leedahay, inaad ka dhalatay, laandheero tahay. bal car dhaafi intaas. muxuu kuu soo kordhiyaa bal sheeg. waxaad jeceshahay inuu reerkaaga nin ka mid ah uu madax noqdo. qabiilkaaga oo dhan waxay u dagaalamayaan inuu mid ka mid ah uu mushaar 4 sano qaato. bal adigu eeg fursadda ku jirta inaad qabiilkaaga u adeegsan karto danahaaga gaarka ah. ragga dhanka qoyan u tallaabay waxay muxtarif ku yihiin, xariifna ku noqdeen xirfaddan adeegsiga qabiilkaaga inuu kuu horseedi karto inaad hadafkaaga gaarto. qabiilku waa caymis, laakiinse adiga waa kuu jaran jaro. si aad uga baxdo xayraannimada joogtada ah waa inaad qodobkan tababar fiican ka soo qaadataa. dulmiga aanan dhicin, isimada iyo nabadoonnada iyo ninka siyaasi isku sheega ah oo aad bilo ka agdhawaataa. laakiinse ogow, hadafkaaga marna ma aha inaad bulsho Soomaaliyeed wax u qabatid. ila fahan sirtu waa inaad lacag heshaa. qodobka labaad, istaylka. waxbarasho been ah iyo inaad diinta ku qaraaban karto. labiska futashaariga waagii hore wuxuu ahaa calaamad ay siyaasiyiintu ku labisan jireen, laakiinse iminka suudad bay wada xiran yihiin. inaad suud $20 kala soo baxdo oo kiyaalo soo tobol caaraysato, baraha bulshada ku soo qori karto madaxdii caalamka soo martay hadallo soo jiidasho leh oo ay qoreen. ogow, hadalladaasina waa inay ahaadaan English. laakiinse waxaa muhiim ah oo tallaabadan ugu muhiimsan inaad magacaaga ka hormariso Dr. HR, Honorable. waa inaad ka hormarisaa si joogto ahna maalin kasta Facebook, Twitter iyo Instagram aad u soo post garaysaa. maalinka jimcaha ah waa inaad masaajidda waaweyn aad salaada jimce ku soo tukataa. sawirka ayaa muhiim inoo ah iyo hadalladaada la soco. waa inaad markaad hadlayso ku bilowdaa hadalkaaga bisinka. dhexda waa inaad insha Allah iyo maasha Allah si joogto ah u adeegsataa. adeegsiga diinta waa qodob kuu muhiim ah oo bulsho badan kuu jeclaanayaan. laakiin ogow, wadaad ma tihid, hana ku talax tegin axaadiista, fasirka quraanka iyo siirada. khalad ha samayn.
waxaa sidoo kale muhiim ah inaad shahaado Farris ah Uganda ka soo iibsataa amaba internetka qarsoon aad ka dalbataa cid ka jagreynaysa malahan xildhibaanada aawada arkaysid oo dhan oo meesha wada fadhiya waa gaangiskii wadankan meelshaan keenay marka horaad iska fahmaysaa kuuna mashquulimaya qaybtan saddexaad waa ku dheeri haddii aad rabto inaad cunayaasha waaweyn ku biirto waa inaad dhulka Soomaalida diintooda iyo dhaqankooda aad iib geyn kartaa waa inaad sidii ganacsadihii u fikri kartaa maadaama aad soo gashay albaabka koowaad oo siyaasadda oo hadda ay ku furmatay wax walba waa inaad lacagta weyn u gudubtaa oo dhulka aad hadda qabsatay amaba aad ka taliso ad ajaanibta malaayiin bay ku bixinayaan khayraadka dhulka korkiisa iyo gudihiisa ku jira maadaama aad lacag doon tahay waa taqaanaa lacagina waxay taqaanaa ninkii shaqaystay oo qaatay marka lacagta ninkii ka dambeeya baa qaadanaya kii ka horeeyana waa qaat adigu inaad ku qatanaatid meeshan maaha dadkan qaadanaya ma dhulkay ka leeyihiin qof haduusa u qalmo waa inaad ogaataa inaad adigu u qalantid sababtoo ah intaas oo sano ayaad u jabaysay tilmaamaha sida uga bixi lahayd fakhriga ugu biir lahayd ragga qoyan